waxaan isku dayi doonaa inaanu xoogaa in sha allahu tacaala kooban ka nidhaahno ee qabasaat min qisati yuusuf ama iftiinno ama tusaalayaal ka mida qisada nebi yuusuf sawaad ogsoonteen qur-aanka waxaa ka mida suuratu yuusuf la yidhaahdo waxaan filayaaba nebi yuusuf meel kaloo qura mu'min aali fircawn markuu ka warramayo quroo kalaaba qur-aanka meel kale lagaga sheegay waa qiso ka gedisan qisaska qur'aanku sida kale ay u qoran yihiin waa qiso bilowgeedii ilaa dhammaadkeedii suurad qura ku wada jirta meel qura ilaahay subxaanahu wa tacaala kusoo wada arooriyey waa qiso ku bilaabanta riyo kuna dhammaata riyada fasirkeedii waa qiso wax badan laga faa'idi karo weliba wadcigan aynu nool lahay iyo casrigan dambe la joogo waa qiso runtii fawaa'id aad u tiro badan laga fahmi karo walidalik ayaa bacd al-a'imma imaam ibn al-qayyim fi kitaabihi daa waxau ku tilmaamayaa suuratu yuusuf alfa faa'ida baa ku jira buu leeyahy haddii ilaahay fursadi siiyana buu yidhi kun faa'iide ayaan ka qori doonaa laakiin maynan arag waxuu ka qoray akthar maa qiil waxaan aragnay طulaab alcilmi almucaasiriin in ka mida oo 100 faa'iide ka tirinaya moxamed saalix almunajid oo 100 faa'iide ka tirinaya qisada tani waxaa la yidhahdaa suuraddani waxay nebiga ku soo degtay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wakhti oo aada u dhibanaa wakhtiga loo yaqaano caami lxusni aw bacdah ayay soo degta bay yidhaahdaan wakhtigii uu nebigu waayey salawaatu ullahi wasalaamu calayh sanadkiisii daakhiliga ahaa iyo kii khaarijiga ahaa ee basharka ka mid ahaa yacnii waxaa geeriyooday adeerkii abi aalib oo tolliimo ugu hiilinayay oo aan agtiisa loo soo maraynin waxaa isla sanadkaa geeriyooday haweenaydii wax walba la qaybsatay nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ee uu nebigu intuu noolaaba xasuusteeda u hayay ilaa iyo ay caayishi iyadoo geeriyootoo maqan ay caaisha ka qiiroonaysay ama ka hinaasaysay siduu nebigu u hadal hayo salawaatu ullahi wasalaamu calayh khadiija bintu khuwaylad ridwaan ullahi calayha oo ka mid ah kuwuu nebigu yidhi dumarka dhowr baa dhammaystirmay ay ka mid ahayd khadiiji wakhti aada ugu adag oo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi cid waliba soo diiday oo uu daa'if tegay oo ka soo noqday oo dhib oo dhan la kulmay ayay soo degtay baa la ydhahaa qisada tani iyadoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nebiga u tilmaamayo in ambiye isaga ka horaysay oo rusushii ilaahay soo diray ka mid ahayd imtixaanaadka lala wadaago waa suurad runtii suwar badan oo imtixaana ka sheekaynaysa waxay ka sheekaynaysaa nebi la itixaamay oo kalgacalkii aabbihii lagu itixaamay waxay ka warramaysaa imtixaan kale isagoo ku dhacay oo walaaladii kayd u degeen oo god ku rideen waxay ka warramaysaa iyadoo haweenay isku dayday inay kufsato waxay ka warramaysaa iyadoo la xidhay oo uu xabsi galay oo jeel uu ku jiro waxay ka warramaysaa imtixaan tiro badan leh iyadoo madaxnimo lagu itixaamay oo uu ummadda madax u noqday waxay ka warramaysaa runtii fitan tiro badan oo marka ilaahay subxaanahu wa tacaala shiddo keenaba haddana faraj ilaahay uu u furayo subxaanahu wa tacaala inna maca alcusri yusraa ay ku gebagaboobayso isagoo fitankaasi oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka badbaadiyey idan qisada tani waa qiso runtii meelo badan oo laysdul taaga leh waa suurad xataa tarkiibkeed qaabku u yaalla ay ka gedisantay waa suuradda qudha ee 4 riyo kusoo wada aroortay iyadoo aan rajaynaya qur-aankaba in 7 riyo ku jirto yacni nebi ibraahim riyadiisa iyo suurat alfatxi ta nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh iyo qisatu beder suuratu ali cimraanta ku saabsiisan iyo 4 riyo oo ku wada jira fii suurati yuusuf isagoo riyooday 2 jeelka kula jiroo riyooday boqorkoo riyooday 4 riyo oo ku wada soo arooray qisadatan qisada tani runtii waxyaabo tiro badan bay leedahay ilaahina subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamaya laqad kana fii qasasihim cibra liuli lalbaab ma kana xadiidan yuftara ilaahay subxaanahu wa tacaala qisadatan waxyaabaha tirada badan le uu kaga warramayo
waxaan jecelahay caawa inaynu deris ka mida qaadanno haddii ilaahay nolosha fusxa ka bixiyo oo ay suurto gasho jawaanib kale mar kalaynu ka eegi doonaa waxaan ka eegaynaa haddii alla yidhaahdo subxaana wa tacaala nebi yuusuf gurigii uu ku soo koray oo dhibi ka dhex dhacday oo mashaakil qabsaday oo kala durkay oo kala lumay iyo xalkii loo helay ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya laqad kaana fii yuusufa wa ikhwatihi aayaatun lisaa'iliin nebi yuusuf iyo walaaladiiba waxa idinku sugan baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala aayaad baa ugu sugan lisaa'iliin waa qiso markaa u baahan daraase aada u tiro badan leh qisadatan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa nebi yuusuf iyo walaaladii inay aayaad ku sugan yihiin maxay sameeyeen nebi yuusuf iyo walaaladii ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa id qaaluu layuusufu wa akhuuhu axabu ilaa abina mina wanaxnu cusba ina abana lafii dalaalin mubiin اqtuluu yuusufa aw iطraxuuha arda yakhlu lakum wajhu abikum watakunuu min bacdihi qowma صaalixiin ilaahay wuxuu inoo sheegayaa subxaana wa tacaala waxaa aayaadku ku sugan yihin baa la yidhi markay yidhaahdeen nebi yuusuf iyo walaalkii ayaa aabba inaga jecel yihi innagoo annaguna aanu nahay bay leeyihin cusba koox aanu nahay ina abana lafii dalaalin mubiin aabba bay leeyihin baadi cad ayuu qadiyaddan kaga sugan yahay mas'alada tanna aabbo ma asiibin bay leeyihin waayo laba qof in cusba koox dhan laga jeclaadaa waa miisaan aan saxsanayn xasba iddicaa'ihim awalan nebi yacquub waxay ku eedaynayaan inuu yuusuf iyo walaalkii ka jecel yahay horta jacaylku qalbiga dega ilaahay baa xukuma subxaana wa tacaala qulubta bini aadamka qofka muslimkaa waxaa saarani waa inuu cadaalad sameeyaa alcadaala laakiin qalbigu cidda uu raacaya ilaahay baa shaqo ku leh ilmaha aada dhashay inaad u cadaalad samaysaabaa korkaaga saaran laakiin basharku haddana ilmaha uu dhalay qalbigiisa way ku kala wen yihin inaad u cadaalad samayso iyo inay qalbigaaga ku kala weynaadaan waa laba kala gedisan nin carbeed oo reer miyaba waxaa la yidhaha carruurtaada ayaad u jeceshahay kolba kii ugu yar ama baahi qaba buu yidhi yacni un odaygiiyo islaantu hadiyo goor waxaa laga yaabaa ka yar unay siitidaanka ugu yar oo isaga loo dareemayo in dacf iyo dhibi hayso oo ay kaa soo dhoweeyaan asbaabo badan baa keena in carruurta la kala jeclaan karo waxaa laga yaabaa inay ku kala dheganugul yihiin midna markuu yeedhaada maqlo inuu hooydu ka soo horrayso oo kuu yeedhayo midna waxaa laga yaabaa adigoo la hadlayaba inaanu dheg kuu raaricin idan inaad u cadaalad samaysaa waa shay kalgacalku laakiin waa masale kale walidalik baa nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh haweenkiisa wuu cadaalad samaynayay laakiin wuu kala jeclaa haddana dadka ayaad u jeceshahay baa la yidhi oo caaisha buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh ma qarsaninba dadka ayaad ugu jeceshay markii la yidhi caaisha ayuu yidhi dabeetana su-aal kaley ku celiyeen wuxuu yidhi aabaheed idan kuwa ugu jeclaa wuu sheegay laakiin haddana wuu cadaalad samaynayay markay cadaalad timaado oo isagoo buka ayuu wuxuu lahaa caawa xaggaan ahay isagoo xanuunsanayaa la siday nebiga xataa mabiidka inuu guri u hoydo wuxuu tijaabinayey isagoo buko oo la sido oo xanuunsanaya in garbaha la galo u habeenba meel seexdo oo yidhaahdo aynaana caawa xaggaan ahay uu yidhaahdo la yidhahdo guri heblaayaad ku beegantay markii dambe ay haweenkiisii u naxariisteen oo ay dareemeen nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh maadaama oo caaisho jeclaa inuu ku bukaankiisa lagu baxnaaniyo guriga caasho la dhigo oo halkaasi lagu baxnaaniyo yani waxaan uga jeedaa jacaylka qalbiga ah waxyaabo badan baa keena qofku inuu cid jeclaado amaa waajibka qofka saarani waa inuu cadaalad sameeyo yacquub may ahayn waadna kala jeceshaba in lagu eedeeyo xataa hadday jirto mar hadduu cadaalad samaynayo dembi maaha inuu qofku kala jeclaan karo laakiin ilmo yacquub waxay ismoodsiiyeen arrin ah yuusuf iyo walaalkii in loo kalgacal badan yahay oo yacquub u kalgacal badan yahay arrintaana waxay ku tilmaameen yacquub inuu baadinimo kaga sugan yahay waasay iyagu sheegteen waxa uu qur-aanku markan inoo tilmaamaya masaa-isha
amraad alquluub xanuunada qalbiga ku dhacaya siday khatarta u yihiin qofku hadduu qalbiga ka bukoodo oo qil iyo xaqd iyo xasad iyo buqdi iyo waxaasi hadday qalbiga galaan inay qoys xataa mujtamac ballaadhan ka kaalaya qoys inay dumin karaan oo ay kala dareerin karaan waxay masaladani tilmaamaysaa ilmo yacquub mas'aladani xadkay la gaadhay waxay la gaadhay inay soo jeedinteedu noqoto uqtuluu yuusufa aw itraxuuhu arda yuusuf in la dilo yuusuf jariimadu galay waa maxay ma dembuu galay xataa haddii yacquub buu ahaa ka wax jeclaaday yuusuf isaga waxbaba ma samaynin laakiin markay dadku xaasidnimada iyo xaqdiga iyo qalbigu markuu xumaado waxaa ku dhaca qofka indhala-aan mawaasiinta ka lunta sida wax loo qiimeeyo xataa ma garta u walidaalika ilmo nebi yacquub waxay qaateen fikradda ah in la dilaba yuusufkaa yar ee walaalkooda ee aan waxba geysanin in la dilo go-aanka ah bay qaateen waxay culammadu yidhaahdaan qofku hadday cadhadu ku biirta bay yidhaahdaan xiqdi bay isu rogtaa xiqdigu hadduu sii biiro bay yidhaahdeen xasdi buu isu rogaa idan waxay yidhahdaan culammadu waa maraatib isdaba taalla alcadaawa waalbaqdaa min alghadab bay ka soo bilaabantaa bay yidhahdaan dabeetana xiqdi bay tagtaa kadibna xaasidnimay tagtaa xaasidnimaduna waa qofka inaad balaayo un la jeclaato adigo aan adigu waxba ka helaynin qolada tani ilmo nebi yacquub waxay qaateen go-aanka ah walaalkood inay dilaan ama se fogeeyaan waxay kaloo qaateen aw iطraxuuha ardan yakhlu lakum wajhu abikum watakunuu min bacdihi qawman saalixiin bal aayadda u fiirso waxay leeyihiin aan ka takhallusno kan yar oo dillo ama fogayno oo lumino dabeetana shayطaanku waa cajiib insaanka markuu jariimada gelayo wuu u fudaydiyaa jariimadan laba sababood buu ku fudaydiyey kow marka hore wuxuu ku fudaydiyey natiijada ka ratibmaysa inay wanaagun tahay oo ah marka kan yar iyo walaalkiiba laga takhalluso waxa soo baxaya bay yidhahdeen yuusuf haddaynu ka takhallusno waxa ka soo baxaya waxa weeyaan bay leeyihiin alamri alwaaqic inuu yacquub u hogaansanaado oo hadda inuu innagayna jeclaado waa wasiilo jacaylka yacquub lagu raadinayo dilku dil baa waxaa lagu raadinayaa maxay jacaylka nebi yacquub alamri alwaaqic bay leeyihin odagu waa isaga hoggaansami doonaa markaynu ka takhallusno yuusuf cid kale ma taale de inagunba alabnaa'i alwaxiidiin lilab aabbaha yacni carruurta qudhow haystaa waa innaga marka dee aabba carruurtiisa kama maarme wayna jeclaan doonaa marka waxay leeyihin yakhlu lakum wajhu abikum aabba wejigiisa keli inoo noqonayo aynu ku keliyaysanaynaa shayطaanku markuu wax sawirayo ilmo nebi yacquub badiihiyaad waxyaabo fudud fudud oo aad u tiro badan buu ilowsiiyey wuxuu ilowsiiyey ma is odhanin war armaa jariimadiinuba muuqataa haddii aad fashishaan oo jariimadaba la ogaado yacquub miyuu jeclaan lahayaa markaa markay inankiisii dilaan ismay weydiinin aabbahood maxaa ku dhici doona jacayl badaayaar buu indhabeelaa oo mushkilad kale qabsataa ismay weydiinin mu'aamarada ama jariimada sida loo fulinayaa armay fuliba weyda oo sidaad ugu tala gashay u socon weyda ismay weydiinin yacni wixii khayaaraad jiray oo dhan ixtimaalaad jiray oo dhan shayطaan wuxuu ka tusiyey mid quroo ah ismay weydiinin armuu ninkani dhimanba waayo idinku soo noqda isagoo madaxa iyo waxaa la kulantaan waxaasoo dhan tirada kumay darin waxay ku xisaabtameenuun hadday jac iyo jac kaga siiyaan in kan yarina tegayo odayguna uu jeclaan doono arrinkuna uu hagaagi doono weliba waxay intaa ku dareen dee toobaduna ma foga bay yidhahdeen isaga markaynu ka takhallusno markaan baynu xajka tegaynaa soo weysaysanaynaa waa masala fudud watakunuu min bacdihi qawman saalixiin baa la leeyahay waxaa la sii bilaangaraynayaa marka isaga laga takhalluso kadib in la toobad keeni doono waa toobaduna dee tajuba maa qablahaayo inay fiicnaan doonaan saasaa bilaan lagu dhigta mas'aladani waxa ay ku tusinaysaa marka insaanku marka uu dariiqa qaldan maro jaraa'imta sida uu u sawiraa ee uula fududahay waxa ay rabaan inay dilaan waa walaalkood xanuun qalbi unbaa ku dhacayoo colaad ah
kay colaadda ku fulinayana ka takhallusayaan waa walaalkood waxay colaaddaa ku raadinayaanna waa aabbahood inay keli ku noqdaan oo uu jeclaado ayay ku raadcaynayaan dembiga xagga alle ka dhici doonana walaalkood isma weydiinayaan isaga iyo arrinkiisa laakiin dembiga xagga alle ka dhici doonana inay ka toobad keeni doonaan waxay dhahdaan culammadu nebi yuusuf markii intaa la hafray beenta laga sheegay dumar ay wax u heshiiyeen xabsiga la dhigay isagoo aan waxba samaynin ee boqorkii uu riyada usoo dirtay uu riyadii u fasiray waa ka wakiil la yidhi ka soo bax jeelka nebi yuusuf wuxuu damcay inaanu bixin ilaa iyo kayskii lagu xidhay laga hadla mooyaane wuxuu yidhi maa baalu niswa allatii qaطacna aydiyahunna nebi yuusuf su-aal buu weydiinaya wuxuu leeya boqorkii u tago fas'alhu maa baalu niswat waxaad boqorka weydiisaa haweenkii gacmahooda googooyey ereygaa maxaa ku jira nebi yuusuf wuxuu xaq u lahaa inuu yidhaahdo haweenkii isku dayay inay kufsadaan wuxuu xaq u lahaa inuu yidhaahdo haweenaydaadii layga taag waayey xaaskaagii layga taag waayey arrinkeedii ka warran wuxuu xaq u lahaa dumarkii hafree beenaalayaasha ahaa ka warran wax haba yaraatee dhacdada lagu tilmaansaduu tilmaamay bay yidhaahdeen haba yaraatee kama warraminna wixii isaga lagu sameeyey ama wixii loo geystay magacoodna ma sheegin bay yidhahdeen waxay culammadu yidhahdaan cammama walam yusami bay yidhahdeen wuu caam yeelay cid gaarana muu magacaabin bay yidhaahdeen muxuu ilaalinayaa bay yidhaahdeen inaanu cidna tajriixinin tajriixa tirada badan leh dadkaoo la dhaleeceeyo la caayo oo la maago oo la wadaa nabarka way sii ballaadhisaa qofkoo markuu gafaba aad sii qodqoddo farta gelisay halkii uu ka gafayba aad farta sii gelisaa way sii dilaacisaa uun kala fogaanunbay sii keentaa ma keento nabarku inuu soo koobmo oo soo yaraado waxa sababa in laga daayo farafaraynta badan in dulqaad badan dadka muslimiinta ay muujiyaan walidalik muu odhanin nebi yuusuf maa baalu niswati allaati raawadna haweenkii aniga i doonay ka warran iyagu weedha isku lahaayeen xataa kumuu odhan waqaala niswatun fi lmadinati imra'atu alcaziizi turaawidu fataaha xataa muraawadadii iyagu isku lahaayeen isagu ma sheegin isagu waxa qura uu sheegay waxa weeyaan haweenkii gacmaha isgoogooyey xaalkoodii ka warrama xataa bay leeyihiin boqorkii su-aasha la weydiinayay gabadhiisii meesha kuma soo darin oo ahaydna ta maxay qisaduba ka bilaabantay haweenkii gacmaha jarjaree kalu tilmaamo waar adiga islaantaadi iyo kayskeygii ka warran muu odhan waxaaba laga yaaba laha boqorku inuu cerka u bixi lahaa hadduu intaasoo qura weydiin lahaa intaana ma weydiinin waxaad tilmaamaysa nebi yuusuf sida uu carabkiisa u ilaalinayay fii nafsi suura waxa ay tilmaamaysaa nebi yuusuf oo godkii ka baxay oo mushkiladoo dhan soo dhammaystay oo madaxa ayaa waxa u yimi walaaladii kuwii godka ku riday waa markii uu dabeetana suwaaculmelika loo dhex raaciyey alaabtii walaalkood ee laga soo saaray waxay yidhaahdeen in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl iyagoo hor taagan bay hadlayaan waxay yidhahdeen hadduu waxaday kani mid ka horreeyo ay walaalahaayeenoo tuug ahaa baa jiray bay yidhahdeen maxaad yeeli lahayd adigoo boqor ah nimankii ku dilee godka kugu riday inta lagu hor keeno haddana hadday yidhaahdaan kani hadduu waxaday ku ka horreeyo tuuga baa jira niman aad kiiskii hore ku qaadin oo waxba aanad u sheeganin oo iyagu god kugu rido ku dilo waxaasoo dhan kugu sameeyey oo haddana weli aan kaa hadhina ku masabidaya nebi yuusuf ilaahay wuxuu ka tilmaamay wuxuu yidhi faasarahaa yuusufu fii nafsihi walam yubdiha lahu qaala antum sharu makaana wallahu aclamu bima tasifuun naftiisa wuxuu ku qariyey baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala nebi yuusuf oo aanu cidna u muujinin hoos qalbigiisa wuxuunbuu ka yidhi antum sharu makaana idinkaa ka liito ka meel hooseeya ka shar badan wallahu aclamu bima tasifuun ilaahay baana og waxaa sifaynaysaa hal minkum intaa yeeli kari lahaa ma jira hadday walaaladaa ku dilaan oo ay isku dayeen inay assassination kugu sameeyaan oo ay god kugu rideen oo dabeetana ilaahay madax kaa dhigay oo ad adigoo madaxa qabato iyagii ay kuu yimaadaan
oo haddana weli ay ku eedaynayaan iyagoon waxba kugu lahayn haddana ay eeddaa u taagan yihiin oo ay leeyihiin in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl. nebi yuusuf wuxuu ku gaabsaday baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala inuu qalbigiisa inta ka yidhaahdo. bale waxa kugu filan nebi yuusuf waxay mufasiriintu yidhaahdaan marna iskuma dayin walaaladii inuu masaa'ilkan ku qaadqaado. sida daraaddeed markuu ilaahay u baryayay ee ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu gallad siiyey ilaahay uu ka warramayay wuxuu yidhi waqad axsana bii id akhrajanii min asijn wajaءa bikum min albadw min bacdi an nazaqa ashayطaanu baynii wa bayna ikhwatii. waxay yidhahdaan saddex masalo qariiba aayadda ku wada jira. nebi yuusuf wuxuu leeyahy ilaahay wuxuu ii samafalay markuu jeelka iga soo saaray buu yidhi. waxay culammadu yidhahdaan jeelka iyo godka iyoma xumaa. jeelku waa meel dad ku nool iyo dad baa la joogay. wadakhala macahu sijna fatayaan, qur-aanku wiilalbaabu tilmaamay la galay. jeelka markuu galay nin dhallinyaro xooggan buu ahaa oo soo koray oo da' soo gaadhay. jeelku waa meel dadka cunno lagu siiyo, waa kanoo bashar lala kulmo. amaa godku kow khayaabat iljubbi baa lagu riday, meel madoobo goda baa lagu riday oo fog bay yidhaahdeen aan magaalada iyo meelaha kan ka oolin. meel aan raashin iyo cunno iyo waxba toona oolin buu ahaa. meel aan aniis iyo cid la gargaarsada iyo cidna joogin bay ahayd. ilaahay markaad manooyinku kuu galay sheegayso waxaa la sheegaa dee kuwa waaweyn alla kuu galay. waxay mufasiriintu yidhaahdaan wuxuu dhowrayay khaatirada walaalkii. walaaladii waxay ku sameeyeen inaanu xasuusinin oo uu isdhaafiyo. dabeetana cadowgii wixii uu ku sameeyey ajeelkii ay ku rideen buu sheegay ee ma sheegin bay yidhahdaan walaaladii halkay ku rideen. waxa uu sheegay markaa nimankii colka ahayeene kale meeshay ku rideen. iyaga markuu tilmaamay wuxuu ihi wajaءa bikum min albadw. iyagu xaggay ka yimaadeen markii dambe ee reerka la ururinayay? waxay yimaadeen 7 sannadood ee faqriga lagu jiray ee abaartu haysatay ee muu odhanin markii idinkuna caydha noqoteen idinkoo caydha alla iikiin keenay. waayo iyaga abaar baa ku dhacay oo kuwii caydhooba dee dhibtu qabsatay ma sheegin. wuxuu yidhi markii ilaahay baadiyaa idinka keenay. baadiyuu mar lagu barwaaqaysanya oo caano iyo hilibba leeyey iyo beer iyo midhaba u leeyey iyo mar lagu haraadanyayba waa jirtaa. waa u camimay bay yidhaahdeenoo wuxuu tilmaamay maxay wajaءa bikum min albadw. muxuu kale sheegay min bacdi an nazaqa ashayطaanu baynii wa bayna ikhwatii. shaydaan ma iyagu derderay mise yuusuf ma waxbuu ku lahaa dhibtii dhacday oo dhan? waxba ma samaynin. marnaba isagu wax ma samaynin saa ka muuqata qur-aanku kaga warramayo. laakiin isagoo khaatirka walaaladii dhowrayabuu wuxuu yidhi baa la leeyay min bacdi an nazaqa ashayطaanu baynii wa bayna ikhwatii. markii shayطaan aniga iyo walaaladayna kala dhex galay. nasqu shayطaan kaanamaa labadooda kooxood bau ku dhacay oo shayطaan buu eedana saaray. wuxuu kaloo ka dhigay labadoodaba inuu dhex maray. waxaasoo dhammi waxa ay sheegayaan bay culammadu leeyihin wuxuu rabay lisaanka jariixa carabkaagu hadduu noqdo mid dadka muda waxaad tahay qof wax firdhinaya ma tihid qof wax daaweynaya. walidalik buu wuxuu iska ilaalinayay walaaladii inuu heshiisuun mar la geli doono oo ay dhici doonto inuu la heshiiyo. sida daraaddeed nebi yuusuf dhaqankiisa waxaa ka tirsanaa mushkilada si uu xallilo inuu noqdo mid cafiifu lisaana. carabkiisu mid aanu dadka xaganin inuu noqdo. carabkiisu mid aanu dadka xaganin inuu noqdo. dhibta iyo nabarada iyo boogaha dhaca waxa sii balaaliya gabayada iyo kaftanada iyo waa isjareexaynayna Soomaalidu sheegto. jareexada de waa jareexa uun, waa tajriix, waa ismudaynaa la leeyahay. waxaasi waxay sii ballaadhiyaan maxay bukaankii. idan waxaan leenahay nebi yuusuf si uu reerkan u ururiyo awalu shay uu adeegsaday waa maxay? wuxuu ahaa yuusuf cafiifu lisaan. lisaanka iyo cafiifnimadiisu hal qisaan nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh idinka tilmaamaya. xadiidkaa wada taqaaniin ee saxiixayn ku yaala ee riyaad saalixiin ku yaala macruufka ah. yahuud baa nebiga u timi iyadoo caaishina fadhida. dabeetana waxay ku yidhahdeen assaamu calaykum. assaam geeriye korkaaga ha ahaata bay nebiga ku yidhahdeen intay u yimaadeen. waxay iska dhigayaan inay salaamayaan oo assalaamu calaykum bay laamkii ka boodeen. dabeetana assaamu calaykum bay yidhahdeen geeriye korkaaga ahaato. waa goorma? waa nebigoo xaaskiisii la fadhiya salawaatu ullahi wasalaamu calayh ayaa la soo doontay adyad iyo gardarro inta lala soo doontay
ayaa haddana la salaami maayo la habaaraya oo la leeyahay assalaamu calaykum. caaisha waa cadhootay, waxay dareentay yuhuuddan khubuskeeda iyo xumaheeda iyo nebigii ilaahay waxa ay kula hadlayaan. dabeetana waxay tidhi wacalaykum assaamu wallacna, idinka geeri iyo nacdashaa laba korkiinna ha ahaata bay ku tidhi. nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu ku yidhi caaishaay mu'minku ku af xun maaha, ku faaxish iyo mutafaaxish midna maaha buu nebigu ku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh. caaisha way dooddo waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiyo miyaad maqlayn waxay ku hadlayaan? waxay is tidhi malaa nebigu saani uma maqal warkay qoladani sheegtay. wuxuu nebigu ku yidhi waan maqlaya aniguna waxaan ku idhi wacalaykum, xataa wacalaykum assaamu intay yidhaahdeen in leeg inuu yidhaahdo uu iska diiday. wuxuu ku koobsaday oo qura maxay? wacalaykum ayaanana idhi buu leeyahy, idinna korkiinna ha ahaato. haddaad salaan sheegteenna korkiinna ha ahaato, haddaad wax kala sheegteenna korkiinna ha ahaato. mujarad xataa inuu lafdigii soo celiyo ayuu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ka gaabsaday. walidalik buu wuxuu leeyahy wacalaykum assaam faqad. maxay taasi tilmaamaysaa? waxay tilmaamaysaa qofka muslimka ah ee murabbiga ah ee la rabo inuu dad tarbiyeeyo kobciyo, waxa laga rabo carabkiisu inuu ahaado oo ah inuu muslimiinta, hadduu nebi maxamed yuhuudda nabadgeliyay muslimka maxaad u malaynaysa? waxa ka nabadgelaya oo caynkan ula dhaqmaya hadduu yahuudi yahay, famaa baalu lmuslimiina xuquuq dheeraada kugu leh. idan waxaan leenahay awal shay uu adeegsaday nebi yuusuf si uu masalada tan u daweeyaa waxa weeyaan carabkiisu ilaaliyay. haani shay baan tilmaamaya, shayga labaad ee uu nebi yuusuf adeegsaday waxa weeyaan mas'alat alcaf. alcifa waa tii hore, wa haaniyan alcaf, inuu dul qaatay oo iska cafiyey oo dhaafay walaalihiisii waxa uu geystay. markuu su-aasha weydiiyey yidhi hal calimtum maa facaltum biyuusufa wa akhiihi id antum jaahiluun, war bal ka warrama markii yuusuf waxaa ku samayseen. laakiin waa uu cudurdaaraya wuxuu leeyay markii ay jaahiliinta ahaydeen. qaaluu ainaka la anta yuusuf, oo ma adigaaba yuusuf ay yidhaaheen. waa markii la isbaranayo koowaad, ainaka ma adigaa yuusuf ah. qaala ana yuusufu wahada akhii qad mana allahu calayna inahu man yataqi wayasbir faina allaha la yudiicu ajra almuxsiniin. qaluu tallahi laqad aaharaka allahu calayna wain kuna lakhaati'iin. qaala laa tahriiba calaykum alyawm yagfiru allahu lakum wahuwa arxamu araaximiin. markay yidhahdeen maadaa yuusufa, wuxuu yidhi anna yuusufaan haykanna waa walaalkay, ilaahay baa nagu galladaystay buu yidhi waxaasoo nimco ah. innahu man yataqi wayasbir, ninka labadaa isku darsada, alla kacabsi iyo sabir qofka isku darsada dunida ma hooga buu leeyahy. ilaahayna dadka samaha sameeya ma hoojiyo. qaaluu tallahi laqad aaharaka allahu calayna, ilaahay baan ku dhaaranay alle waa nooga kaa roonaaday bay leeyihin. wain kunaa lakhaati'iin, annana waa gafsanayn. wuxuu ku yidhi laa tasriiba calaykum, canaaniba korkiinna maaha. garnaqsi iyo warkaasi ma jiro. wuxuu leeyahay canaaniba korkiinna maaha ee yakfiru allahu lakum, alle dembigiinna ha dhaafo. canaani korkiinna maahee alle dembigiinna ha dhaafo. mas'alat alcafwi waalmagfira waalsafx waa masaa'ilka maanta yar ay muslimiin badani ilowday. maalin haddaan nin wax isku qabateen beraanu kaas qabanaydunbuu hayaa. xataa hadduu kayska cafiyey hadalka dayn maayo, cafin maaha. haddaad weli waddo unoo taagan tahay beri waxaa igu sameeyey ninkaas, beriba waxaa ii galay beri, haddaadun weli sheegaysa waxba maad cafinin, waayo weli waxaad daba taagan tahay un maalin waxuu ku yeelay. asalkuna waxay ahayd qofka muslimkii inuu cafiyo. cafwigu waa masale muslimiintu ay wakhtigan dambe aada u ilowday. ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu sifaynaya jiilkii saxaabada ahaa ee salafi lumma ah ee dadkii lagu dayan karayaya ayaa ilaahay qur-aanka ku sifeeyey. lilfuqaraa'i almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim waamwaalihim yabtaguuna fadla min allahi waridwaana wayansuruuna allaha warasuulah ulaa'ika hum asaadiquun. waxaa la sifeeyey muhaajiriintii ilaahay dartii uu soo hijrooday, uu jihaatamay, ilaahay subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa jacaylkiisa ka doortay nolosha oo dhan, uu jihaatamay, ilaahay subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa jacaylkiisa ka doortay nolosha oo dhan. ulaa'ika hum saadiquun baa ilahay yidhi, kuwaasi waa kuwii iimaankooda ku run sheegayay.
أنصارنا إلهي واسفي والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. labadii kooxood ee muslim ugu mudnaa waa labadaa kooxood oo saxaabadii nebiga. kooxda saddexaad ee labadan kooxood ka daba tagtay waa kuwee? ilaahay sifo ku tilmaamay u fiirso, waa sifo dadku maanta wada hilmaamsan yahay, laakiin naddaci salafiya, salafinimadan wada sheeganaa, haddana sifadii loo sheegay kuwaa taabica waa salafku waa mas'ala dadku inta badan u hilmaansan yahay. إلهي وحليه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وحي الله سبحانه وتعالى وكت المامي والذين جاءوا من بعدهم كوا قداشت كوي ما مسلمين دنبه وحي إليهم بايل هيدي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. waxay leeyihiin ilaahay oo annaga iyo muuminiintii nagu horraysaba u naxariiso, kuwii iimaanka nooga horreeyey annagaba u naxariiso. waxay kaloo leeyihiin ilaahow mu'min dhammaantii qalbigayaga hilli iyo xasdi iyo xaqdi iyo waxaa ha u gelin, qalbigayaga ilaahow noo saafi yeel bay leeyihin. idan sifati salafiya, caqiidadii saxiix ahayd iyo diintii wanaagsanayd waxa ay leedahay dhaqan suuban iyo suluuk salafiya jira oo qofku qadiyati tawxiid oo qura inuu tajriidiye maaha ee waa inay dhaqan noqotaa, waa inay dhaqan iyo diin soo baxdaa. dhaqan iyo diinta laga rabaa maxay tahay? waxa uu ku tilmaamaya alla subxaana wa tacaala inuu yahay dadka mu'miniintii mid ay ka nabad galaan oo aan qalbigiisa wax xiqdi iyo xaasidnimo iyo dhibtoona ugu haynin. idan waa masaladuu ku xalliyey mushkiladii jirtay oo dhan nebiyullaahi yuusuf salawaatu ullahi wasalaamu calayh. waxaan leenahay waxa qur-aanku ina baraya war ahlu kitaab baa ilaahay wuxuu leeyahy wadda kaiiru min ahli lkitaabi low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasada min cindi anfusihim min bacdi ma tabayana lahum alxaq. ilahay ahlu kitaab buu ka warramo waxaa la yidhi ahlu kitaab qayb ka midi, kaiir min ahli lkitaab baa ilahay yidhi waxay jecel yihin inay diinta idinka saaraan. maxay idinka saarayaan? xasadan min cindi anfusihim baa ilahay yidhi, xaasidnimo daraaddeed. weliba baa ilaahay leeyay min bacdi ma tabayana lahum alxaq, markii uu xaq u caddaaday kadib ayay haddana rabaan inay diin la'aan idin badaan. markaasaa ilahay wuxuu nabiga ku yidhi facfu wasfaxuu xataa ya'tiya allahu biamrih ina allaha calaa kulli shayin qadiir. haddii la leeyahay ahlu kitaab facfu wasfaxuu, muslimka maxaa laga yeelaya? bukaankan qalbiga galaa isagaa mushkiladdii maxaa daweeya? qoladan biologiga iyo cilmigan kale ka warantaa waxay leeyihin cadhadan tirada badan le iyo xaqdiga waxa kani kaad u cadhaysanta isagu uu caafimaad qabaa aduunbaa sii bukooda bay yidhaahdeen. bukaanku aduunbaa buku hayaa bay leeyihin, adaa neerfaha u kacaya, digestive systemkaagaa isbedelaya. waxay yidhahdeen waa bala aan cidiba kuu ogeyn, adaa dhibna laguu geystay, mar labaadna adaa naftaada sii dhibaya bay leeyihin. idan xataa caafimaadkaaga waxay ahayd inaad iska saafi noqotid si aad u caafimaadida u hagaagtid, aduunbaa beladani ku gubaysaaye inaad adigu shaydaanka iska naartaabay ahayd. ahlu janna ilaahay markuu sifaynaya wuxuu ku tilmaamaya wanazacnaa ma fii suduurihim min hil tajri min taxtihim alanhaar, ama wanazacnaa ma fii suduurihim min hil ikhwanan calaa sururin mutaqaabiliin. sifada ahlu jannaa loo sheegay de waa mu'minka unbaa janno gala ileene. waxaa la tilmaamaya inay yihiin kuwo qalbigoodu maxay yahay? saafi. duulisa suran aan weligoodisa sii dayn haddaad aragto waa sifada ahlu naarka. kulamaa dakhalat ummatun lacnat ukhtaha baa ilahay yidhi, kuwa aan weligood kala fuqinin. waxaa la yidhi naarta markay kooxi gashaba kooxda kalunbay nacdashaa, kuwa markay kooxi kursiga koox ka kicisaba kuwa kalu nacdalaa ee ishayaa-uun. waa sifada ahlu naarka lagu yaqaano. idan waxa uu nebi yuusuf waxa uu adeegsaday alcifa oo aynu carabkiisa ilaaliyo dhowro. wuxuu kaloo adeegsaday qoyskaasi si uu soo uruuriyo nabarkii markuu ka ilaaliyay inuu damqo haddana inuu cafiyo. laa tasriiba calaykum alyawm yakfir allahu lakum buu adeegsaday. masalat alcafw
waxaan rabaa inaan idinka daadajiyo balaan dib u soo noqdo yuusuf oo qurayaan joogi uxud ayaa nabiga ku dhacday salawaatu ullahi wasalaamu calayh uxud waxa ay mushkiladu u dhacday saynu wada naqaano saxaabo wax ismoodsiiyey oo dabeetana hunguri galay oo meeshii uu nebigu yidhi ka dagaalgali waayo soo yaacay dabeetana muslimiintii waa la jebiyey jab adag baa ku dhacay oo kuwuu nebigu jeclaa ama ugu dhowaa xamse iyo inta la dilo in la googooyo oo tamthiil lagu sameeyo beerkiisa dumar calaashadaan in saxaabo badan la laayo rag badan in la oofsado muscab ibnu cumayr iyo raggii madiinaba furtay ee diinta geliyey ee sacd ibnu mucaad iyo mucaad ibnu jabal iyo raggii la yaqaanay diinta ku soo daray waa maalmahay meeshan alla uu ku kaxaystay waxaasoo dhibi markay dhaceen riwaayaadka saxiixi waxay tilmaamayaan saxaabada badh oradkii inay madiina dib u galeen markii la jabay ragga badh baa yaacay oo oradkii madiina galay waxaasoo mashaakilaa dhacay nebi maxamed wixii oo dhibaa ku dhacay salawaatu ullahi wasalaamu calayh in ilkaha qaar jajabaan biro ay galaan dhiigguu laga daadiyo salaadii uu fadhiga ku tukado uu sarajoog ku tukan kari waayey waxaasoo mashkiladii iyadoo dhacday ayaa ilaahay qur-aan soo dejiyey ilahay wuxuu leeyay fabima raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan galiida alqalbi lanfaduu min xawlik facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamr kuwa isagoo alla ka warramayo mujtamac baa la rabaa in la wado mujtamacu afraad maahe waa mujtamac dhan waa basharo waa khataa'iin gafaf badan baa ka dhacaya nooc walba way isugu jiraan laakiin dadka qaadadee la rabo inay ummad hogaamiyaan inay ummad culamo u noqdaan inay ummad madax u noqdaan inay ummad kaxayn karaan waa inay noqdaan dad aan tirsiista aqoonin iyo ficiltanka waa inay noqdaan dad cafiskooda uu ballaadhan yahay walidalik baa ilaahay wuxuu nabiga ku leeyahay haddii aan naxariis alle qalbigaaga dejin oo aad tahay mid dabeecad adag oo kakan oo qalbi adag dadkuba waa kaa yaaci lahaa baa ilahay leeyahy walow xaqna sheege dabeetana ilaahay wuxuu nabiga amray maxay facfu canhum baa layidhi kuwaa dagaalkii kaaga baxay iyo kuwaa jabay ee baqaya madiino oradka ku galay iyo waxaasoo dhan baa ilaahay yidhi facfu canhum dhaaf iska cafi adigu cafi baa layidhi waxaa kaloo la yidhi weliba wastakfir lahum ilaahayna dembi dhaaf weydii intaa waxaa kaloo la raaciyay bulshaatiino dan baa idinka dhaxayse washaawirhum fi lamri baa ilahay yidhi weliba la tashana taladana waxbay ku leeyihin iyagoo jabka keenay ayaa la yidhi taladana waxbay ku leeyihin maa macna dalik waxay sheegaysaa umamka sida loo hogaamiyaa inaanay ahayn nin buug madow sitoo hebel baa beri dambaabay una iyo maalin buu waxgalay oo aan weligiiba rikoodhka ka masmaxaynin oo aan qofka haddii ilaahay ka toobad aqla laga toobad aqbalaynin qaabkaa maaha waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo waxa shaksiga ee lagaa gal kari waa dan ummadeed iyo waa kane qiso kale aan tilmaamo xaadithatu lifk waa tii beenta la sheegay ee gurigii nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi beenta laga sheegay iyo saxaabigii qaaliga ahaa ee safwan ibnu lmucatal la odhan jiray caaisha iyo safwaan baa waxaa la yidhi way isla hadheenoo xumay sameeyeen dabeetana warkaasaa la faafiyey qiyaadadii ummad oo nebi moxameda salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ayaa gurigiisii beenta intaa laga sheegay beentaasi way faaftay oo waa la isgaadhsiiyey markii hore munaafiqiin baa soo bilaabay laakiin muslimiintii badh baa uun samaacuuna lilkadibkoodii iska rumaystay wa fiikum samaacuuna lahum tukuwii alla tilmaamaya qaar baa noqdo warkoodii dacaayadkii markii laga badiyey run mooday dabeetana warkii si caama u faafay ilaahayna subxaanahu wa tacaala mujtamacan inuu tarbiyeeyaa buu rabay qur'aan markiiba lama soo dedejin le caaisha waxba may samayn ama nebi maxamed ilaahay markiiba qur'aan ma soo dejin saaxadiisa beri yeelaya gurigiisa inaan waxba bil baan qur'aan ka soo degin masaladaa bil baa waxaad qiyaastaa magaaladii madiina oo hal biloo cir alle ka dhalatay warkaa un la wado oo cidda la dacaydaynaya ay nebi maxamed iyo gurigiisii tahay abi bakar ridwaan ullahi calayh oo ummadda tan nebi moxamed dabadeed ugu fadli badnaa oo ahaa nin aad u xanaaq kulul markuu xanaaqo abi bakar wuxuu ahaa nin xanaaq kulul hadduu xanaaqo laakiin wuxuu ahaa nin waqaaf lilxaqa oo aan xaqa dhaafin
abi bakarna mas'aladaasi qabsatay oo ay inantiisita wax laga sheegayo intaa kadib yaa waxaan sheegay dadka waxaan sheegay waxa ka mid ah Mistah ibn Athath. Mistah waa nin saxaabiya waa nin badariya ahlu badara waa nin muhaajira min almuhaajiriin ka mid ah waa raggii ragga ahaa laakiin nin kastoo ragga mar bay hoos martaa nin kastoo ragga wa khayru lkhataa'ina tawaabin mar bay hoos martaa ninkaa badariga ah ee muhaajirka ee caynkaasiya waa hoos martay oo wuxuu ka mid noqday fikraddan dadkii faafiyey buu ka mid noqday khata intaa leeg buu galay oo fikraddan raggii faafiyey ayuu ka mid noqday Mistah waa mid kale abi bakar qaraabu la wadaaga oo hooyadii Mistah hooyadii iyo abi bakar baa habar wadaago laba walaalii kala dhaleen marka abi bakar waalid buu yahay inantana Aisha iyo markaa Mistah laba habar wadaaga kala dhashay qaraabay Aisha waa mar saddexaade Mistah iyo hooyadiiba waxay ka mid yihiin dadka waa abi bakar masruufo abi bakar nin muslim oo hantiila abu ahaan jiray wuxuu kala ahaa muslimiinta dadka ugu wax bixin badan waa ka abi Umar laha maalin baa isiri la baratano waxaan isiri maanta xoolaad haysataa intaad laba u kala qaybiso nuskeen dabeetana waani ma abi bakar waxa la yidhi maxaad keentay xoolaha iyo wixiiba buu yidhi carruurtii maxaad uga timay ilaahay rasuulkii buu yidhi maalintaasaan go'aansaday buu yidhi inaan ninkan gaadhaynoo dib ula baratabin aniguna nus baan meesha la socdaa buu leeyahay isna wixiisiiba uu keenay marka wuxuu ahaa nin aad u deeq badan abi bakar oo muslimiinta wax siiya Mistah iyo hooyadiiba markaa isagaa biilin jiray abi bakar markaa maxaa wada haysta waxaa wada haysta nin uu isagu quudiyo oo isagii haddana dacaadeynayay reerkii nin uu tol iyo qaraabo yihiinoo waalid uu yahay oo isagii dacaadeynaya nin muslim oo muhaajir oo badariya oo intaasoo dhan diin soo wada galeen oo haddana isaga reerkiisii sheegaya abi bakar masaladii uu qaadan kari waayey markii ilaahay quraan soo dejiyay la tilmaamay in arrinku saa yahay abi bakar way ku adkaatay inuu liqo ninkan arrinkiisa ninka intaasoo dhan midnaba xeerin waayey islaamnimo igu soo dhaafay buu leeyahy ee tol iyo qaraabo soo dhaafay ee un wax siinaya waxsiintii soo dhaafay maxaad yeeli lahayd abi bakar wax kale ku samayn maayo buu yidhi wax dambe ku siin maayo buu yidhi ina kala kaxee anigu shilin dambe oo aan leeyahay kusiin maayuuna saa inugu kala kaxee buu yidhi ilaahay baa quraan soo dejiyey leh waliyacfuu waliyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum baa ilaahay leeyay ilaahay wuxuu leeyay waar ha cafiyaan oo ha ka jeestaan oo ha dhaafaan abi bakar iyo cidda la mida baa la leeyay dadka cafiya oo sawti taa laygu sameeyey taa miyaan cafiyi karaya ilaahay baa wuxuu leeyahay alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum tirsaadna imisumaad ilaahay gaf ka gashaa soo ma jeclid inaad bal lagu dhaafo imisumaad dembi gashay markaad tiriso kan waad gasho haddana yaa rabbi unbaad leedo gacmahaad kor u taagaysaa ma quusatid maalin walba waad qasaysaa laakiin haddana ilaahay ii dhaaf baad leeday ilaahay markaa wuxuu leeyay idinba waa jeceshinkaa iga gashaan ilaahay isagaa ku abuuray isagaa ku quudiya kownka isagaa iska leh nimcadaad haysato dhan isagaa iska leh halkaad u shukri naqi lahayd baad macsi ku samaysay wixii uu ku siiyo dhan haddana quusan mayna yaa rabbi baan leenahay oo waa baryaynaa ilaahay wuxuu leeyay daan baanoo intaasoo dhan idin siiyey oo waxaasoo nimca idin siiyey ayaa rabtaan inaan kiina dhaafo idan alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum baa ilaahay yidhi cilladu waa tatan waliyacfuu baa la yidhi waxaas aad tirsanayso o dhan abi bakarow waliyacfuu waliyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum miyadan jeclayn baa ilaahay leeyay subxaana wa tacala in alla dembigiina dhaafo dabcan waa jecelyay abi bakar markaasba wuxuu yidhi biilkiisiina ha la siiyo bes khalaas waa cafiyey biilkii uu siin jiray iyo wixii oo dhanna wuu ogolaaday yacni waxaa la rabaa haddii mujtamaca midba mid ka aargoosto fain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuqibtum bihi waa jirtaa walaman sabara baa ilaahay yidhi inta dambe dadku iska indhamaraa lama akriyo walaman sabara wagafara inta dambe ka muhiimsan asalku waxa weeyaan qofku xaqiisii wuu leeyay laakiin ummadi ana iga goo kuma wada noolaato hadduu qof walo ummadda ka tirsan uu yidhaha ana intayda ha lay gooyo waxba soo hadhi maaya ummad marka la rabo inay ummad noqoto jirto wayna jiraan dad qalbi weyn leh oo ummaddan hogaaminaya wax cafiyi kara dad wax cafiyi kara oo wax dhaafi kara wayna jiraan dad wixii gaadhay aakhira u xisaabtamaya wayna jiraan inta aad leedahay waa ninkii waxaa berigaa igu sameeyna dee waxba maad cafinin ilo adiga wado una sheeganayeen
waxay ahayd in la iscafiyo oo dadku ay dadka cafiyaan. walidalik marka la rabo ummada inay jirto nebi maxamed maxaa lagu sameeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh? waa la dilay, waa la maagay, waa la dhacay, waa la boobay, wax walba waa lagu sameeyey. reer maka muxuu sameeyey? waa u yimi culamaai taarikh say sheegayaan abu cubayda suu sheegaya fatxu maka markuu ka warramayo wuxuu akhriyay buu yidhi weedhi ahayd nebigu laa tatriba calaykum alyawm yakfir allahu lakum. waa in kasta uu mursal yahay laakiin sanad xasan uu ku soo arooray oo mursala. antum tulaqaaguma asixin bay culamaa alxadiid yidhahaa, laakiin waaqic alamri wuxuu sheegaya inuu dadkii cafiyey. dhowr qof buu yidhi haddaad ka heshaan sitaari lkacba xataa iyagoo ku duuduuban dila. dhowrkii xataa 4 meelahaas bay ahaayeen. qaar kuwa caynkaa yidhi oo la wadaa loo keenay, dabeetana wuxuu yidhi mar haddaa i keentay inta iska cafiya sii daaya. kuwa caynkaa nebigu ku lahaa ayaa cuhmaan mid keenay, cikrama bnu abi jahl baa la keenay, waa iska dhaafay. kuwa lahaa xataa iyagoo kacbada daaheeda haysta haddaa aragtaan dila. markii loo keenay waa sii daayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh. saa awgeed baa xadiidkii bukhaari waa kii tilmaamayey man taqama linafsihi abada. nebi moxamed weligiiba wax isaga la yeelay inaanu aargudanin. walidalik ba xadiidkii saxiixa ah waa kii sheegayay maxay iyadoo najd laga soo noqdo oo ciidamo muslimiin ay soo laabteen ayaa meel la yimi, dabeetana goor kuleylaa dhirtuunbaa lagu kala faafay. qofba geed buu iska hoos fadhiistay oo iska hoos seexday. nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh geed buu hoos jiifsaday. isagoo geedkii iska hoos jiifa seeftiisiina wuxuu sudhay laan sare. dabeetana nin reer baadiye ah baa yimi. markuu yimina wuxuu soo nebigoo jiifa buu seeftiisii la soo degay, galku kala baxay. nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh indhaa wuxuu kala qaaday uun nin seeftiisii haystoo la dul taagan oo leh man yamnacnii minka, yaa iga kaarabaya leh. dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi allah, ilaahay baa iga kaa celinaya. waa ku celiya wuxuu yidhi man yamnacnii minka, war yaa iga kaarabaya? wuxuu yidhi allah. 3 jeer buu ku celiyey. nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi intiiba wuxuu yidhi allah. si ay ka noqotayba ninkii waa kurbaday unoo seeftii baa ka dhacday. dabeetana nebiguna wuu qaatay. dabeetana wuxuu yidhi man yamnacnii minka, anna yaa iga kaarabi? kun khayru aakhidin buu ku yidhi, ku seef qaata ka u fiican noqo. waa baryey isagoo nebiguna seeftii haysta. kiina uu meesha fadhiyay saxaabadii u yimaadeen oo dhawaq iyo waxyaro maqlay. markay u yimaadeen buu nebigu u sheegay u yidhi ninka kani caynkaa iyo caynkaas baa dhacdo saa iyo saas buu igu sameeyey. dabeetana markaan idhi aniga ilaahay baa kaa celinaya, ilaahay seeftii buu ka riday. markaan isla dul taagayna wuxuu yidhi waa iska cafiyey nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh, waxba ma ciqaabay. ninkaa isku dayay inuu assaasinayd gareeyo ee dile ee cidlada ka helay ee seeftiisii qaatay ee rabay inuu madax ka jaro, nebigu markuu ka xoog batay uu iska sii daayay, oraska tag buu ku yidhi. idan masalat alcaf wuxuu nebigu rabay salawaatu ullahi wasalaamu calayh inuu ummad dhiso. walidalik baa ilaahay wuxuu inoo tilmaamaya waalkaadimiina alghayda waalcaafiina can innaasi wallahu yuxibu almuxsiniin. ilahay mu'miniinta markii la sifeynaya waxaa la yidhi marka hore waa kaadimiina alghayd. waxay yidhahdaan culammadu waa 3 shay oo kala dambeeya. kuwa cadhadooda qarsan kara. kadmu lghayd, inaad cadhadaada qarsato macnaheedu waxa weeyaan ma rabtid inaad dee kartid oo aad markaaba argoosatid. cadhadaada haddaad xejin karto oo qarin kartid caqli aduu kugu dambeeyey. waxay yidhaahdaan culammadu istiqraaq laxd alxaa, qofku hadduu instantaneous noqdo bay dhahaan laxdada secondiska uu markaa joogo hadday maskaxdiisu ka jawaabayso wax dambeba ay arki kari weydo go-aan ma gaadhi karo. saa daraaddeed nebigu waa kii tilmaamayey maxaa u taqaan ninka xoogga badan. xadiiskii saxiixa maxay yidhahdeen markaa ninkaan dhinaciisa dhulka la dhigin bay ku yidhahdeen. nebigu wuxuu ku yidhi ka xoogga badani waxa weeyaan maxay? ninka naftiisa hanan kara markuu cadhoodo buu nebigu yidhi. ninka markuu cadhoodo naftiisa hanan kara kaas baa nin xoog badana. balaayaba waxay dhacdaa un dee nin cadhoodo isxejin kari waaye. waxa aad dadka maqlayso sheekhuun baa lagu odhan doonaa hee markaad tidhaahdo islaantii baan 3 ku furay anoo cadhaysan. dee markaad cadhaysantay waxba lama furo. yani markaad cadhaysantay go-aanba lama gaadhan. nin raga haddaad tay weligaa adigoo cadhaysan go-aan ha gaadhin, wuxuu doonaba ha noqdo. go-aanba ha qaadanin, no judgment at all. haddaad nin raga tahay adoo cadhaysan go-aan ha gaadhin, wuxuu doonaya ha ahaado. waxaad isku daydaa inaad go-aamadaada qaadato adigoo miyirka qaba, adigoo aan waalayn. cadhadu waa nooc min aljunuun. adigoo miyir qaba inaad go-aamadaada qaadatid. xataa haweenay haddaad rabto inaad furto iska tag adoo miyir qaba fur.
oon cadhaysanayn oo bala qabin go-aankaaga qaado. walidalik ilaahay wuxuu leeyahay alkaadimiina alghayd, kuwa cadhadooda xejin kara ee qarsan kara, waalcaafiina can innaas baa la yidhi. kadmi alghayd masale kaloo ka dambaysaa jirta oo istab ka sarreeya oo ah inaad dadkaba iska cafidid oo aad dhaaftid. taa masale kasii sarraysaa jirta bay yidhaahdeen oo ilaahay wuxuu yidhi wallahu yuxibu almuxsiniin, inaad samafarsho, inaad ixsaan samayso. ixsaan samayntu waa maxay? waxay yidhaahdaan ciqaab la geysto qof, haddaad rabto inaad banishment ku samayso, inaad qof ciqaabto, qof dhib kuu geystay oo og inuu godob uu kaa hayo, haddaad adigu weliba wax siiso abaal kale u gasho, waxay yidhahdaan waa cuquubo bini aadam lagu ciqaabo ta ugu adag. ilahay qur-aanka muxuu ku tilmaamay? idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa kaannahu waliyun xamiim. kii xumaa kugu sameeyey maxaa la yidhi? maxaad ku samaysaa? sama u samee baa la yidhi. oo natiijadu markaa maxay soo baxaysaa? ninkii shalay dhibta kuu geystay ee maanta filayey inaad adna goosatid oo aad goosan kartid, haddaad weliba adigu hadiyad siiso, dee ninkaasi waa hadduu inuu damiiruun qalbigiisa ku jiro waa xishoonayaa, dib dhinacaaga usoo eegi maayo. maalin dambe inuu dhankaaga soo eegaa, inuu kuu istaago markuu ku arko mooyaane inuu dhankaaga soo eega mar dambe lagama yaabo. saa daraaddeed baa ilaahay yidhi kaasi wuxuu noqon doonaa maxay? kaannahu waliyun xamiim baa ilahay yidhi, mid qaraabo oo ku dhow oo xamiim ah, kaas buu noqon doonaa baa la leeyahy subxaana wa tacaala. idan waxaan leenahay nebi yuusuf wuxuu adeegsaday laba masalo. gurigii wuu isu keenay, reerkii dib bay u dhismeen, riyadiisii uu ku riyooday ilaahay waa u xaqiijiyey. isagoo madaxa ayaa la keenay hooyiya aabbaba iyo wiilashii ay walaalahaayeen oo dhan. dabeetana reer banu israa'iil guulaha loo tilmaamo waa halkay ka soo bilaabeen. qoyskan baa reer banu israa'iil ka bilaabmeen. waxay bilaabmeen iyagoo mucasiziina oo mukaramiina inay soo degaan masar. qoyskan isagoo tabaqadii sare ee faraacinada ee waddanka xukumaysay, isagoo ay martigeliyeen oo soo dhoweeyeen oo mucazis oo dad sharfana ayay soo degeen. reer banu israa'iil taariikhdooda qur-aanku uu ka warramayo waa nasrigii koowaad ee u soo hoyda. laakiin nasriga kani wuxuu keenay gurigan inuu yuusuf ururin karo. ilaahayna sida mufasiriinta qaarkood ay ku fasirayaan alasbaat wa abnaa'i yacquub, mufasiriinta qaar waxay qabaan 11 kalena in ilaahay markii dambe nebiye ka dhigay, reerkiiba inuu nebi isugu wada baxay. yacquub iyo yuusuf iyo walaaladii iyo wuxoo dhammiba inay ambiye noqdeen. balaayadii hore waxay dhacday bay dhahdeen qabla nubuwa, cidda qabta inay abnaa'i yacquub ambiye ahaayeen dhammaantood. waxaan leenahay haddii la rabo marka qisatu yuusuf, waxaan leenahay cinwaankeeda koowaad waa cifa. cifadana almaawardi wuxuu ku tilmaamayaa alcifa can almaxaarim walcifa can alma'aasim baa la yidhahdaa buu yidhi. waa laba nooc. alcifa can almaxaarim buu leeyay waa farjiga iyo carabka oo aad ilaaliso oo aad maxaarimta ka ilaaliso. alcifa can alma'aatimna waxay yidhaahdeen waa dulmiga inaad la jahrido iyo khiyaano inaad israarto oo qarsato oo aad iska ilaaliso. nabiyullaahi yuusuf qisadiisu waxay caan ku tahay cifanimo. waxaan leenahay hadduu nebi yuusuf gurigii ururiyey, asaaliibtu maree qur-aanku inoo tilmaamaya waa tan. cid kastoo usluubkan martaa waxaan leenahay guri kastoo baaba'a waa la ururin karaa, ummad kasta oo lunta waa la ururin karaa. walidaalika waxa koowaadee loo baahanya waxa weeyaan in dadka muslimiintii carabkooda inay ilaaliyaan. waxaa loo baahanya qofka muslimkii qalbigiisu inuu nadiif noqdo. maxaa ka liita in toddobaad kasta lagugu soo celiyo camalka? xadiidkii saxiixu muslim ku yaallay muxuu tilmaamayay? waa kii nebigu lahaa waxaa ummadda acmaasheeda waxaa la bandhigaa khamiis kasta iyo maxay isniin kasta ilaahay loo bandhigaa. dabeetana qof kastoo aan ilaahay u shariig yeelayn ilaahay dembigiisa wuu soo dhaafaa. laakiin labadii ishaystee dhexdooda shaxnaagu uu yaallay, waxa uu xadiidka nebigu tilmaamayaa in la yidhaahdo kuwa andiruu haadayni xataa yastalixa, andiruu haadayni xataa yastalixa, andiruu haadayni xataa yastalixa. in ilaahay yidhahdo labadaa iyaga iga celiya arrinkooda inta ay ka soo heshiinayaan. war xataa acmaashaadu marfuuc noqon mayso. ilaahay baa le labadaasi way kala fuqi waayeene celiya
inta ay ka soo heshiinayaan waa acmaashii saalixa kale aad samaysay ayaa la leeyahay andiruu haadayni xataa yastalixa idan waxaan leenahay ummadatan ururinteedu wuxuu ku ururmaysaa in qofka muslimka uu cafiif noqdo carabkiisu dhowrsanaado oo dadka muslimiinta oo dhan carabkaagu ka dhowrsanaado caama iyo culamaba qof muslimo wax duraya inaanad isku dayin iyada culamo iyo dadkaasi inaad durto daah kuwa waa kuwa imaamu axmed tilmaamayay maxay luxuumi alculamaa masmuuma man shamaha marid waman akalaha maat waa weedh runtii laga haya imaamu axmed culamada buu yidhi hilibkoodu waa sumaysan yihi ninka ursadaa buu yidhi waa bukoodaa kii dhadhamiyaana waa dhintaa buu leeyahy imaamu axmed idan muslimka oo dhan inaad nabadgeliso badbaadiso oo carabkaaga ka badbaado ayaa muhima muslimiinta dhibta dhex taalla inaan carabka lagu sii balballaadhin haddaad rabto in heshiis yimaado sheegsheegaagu inaanu badanin iyo inay dadku mansilati alcafwi u gudbaan oo ah inuu qofka muslimkii dulqaad yeesho iyo raganimadii waxay ku jirtaa inaad wax cafiyi karto adba ilaahay baad ka rabtaa inuu ku cafiyo waxaad booshaaqladoo dhan allaad rabtaa inuu kaa dhaafo inaad adiguna ilaahay subxaana wa tacaala si uu kuu cafiyo inaad ummadda muslimiinta cafido waxaan leenahay qisatu yuusuf markan waa qiso macaani badan ay ku jiraan laakiin caawa waxaan ku soo koobayaa qabasa ka mida qabasaadkaasi oo ah haddii ilaahay wakhti kale ina siiyo waa laga yaabaa inaynu jawaanib kale qisada ka eegno lakiin waxaan kusoo koobaynaa caawa guri burburay oo wixii burburiyay amraad alquluub ay ahaayeen oo dabeetana kala lumay oo in lunta in la addoonsado in iska tagta in indhabeesha iyo in xuma weli sii wadda u qaybsamay shataat noqday oo dunida ku faafay dabeetana dib loo soo ururiyey waxa soo ururiyeyna uu yahay asaaliibtii uu adeegsaday bacd allahi subxaanaه wa tacaala nabiyullaahi yuusuf intaas baan kusoo koobaynaa wallahu aclam billahi tawfiq